gabadhu caadiyan sida humanitarian-kan arrimahan bini'aadamnimaday barata ku takhasustay iyadaana ay ka shaqaynayso shaqadeeda ahayd. Marka hadda urur oo iyo fondazione qolyahan ururo iyo fondazionayaasha fondazionuhu waa ururo dhaqaalana ayagu haystaan oo dhaqaala soo gala oo fangareeyo oo maalgeliya waxyaaba. Marka iyada waxaa mas-uul loogama dhigina waxaa laga qayb geliya iyada iyo 8 dhalinyaro ah oo magaaladan Milan oo Talyaaniga ku nool inay ka shaqeeyaan project islaamofobiyada waxa la yiraahdo islaamka nacaybka kasoo horjeeda inay ka qayb qaadato ka shaqeyso. Marka sababta loogu xushay hadii aad dadka u sheegto gabadhan, sababta loogu xushay waa laba sabab. Koo waxa weeye gabadhan waxa weeyaan waa aragnimo waxay qabtaa oo islaam nacayb ah oo islaamka markay iyadu qaadatay lagu neebcaaday oo lagu dhibaato ay kala kulantay. Marka way aragnimo waxay qabtaa iyadoo Talyaaniga in islaamka la neceb yahay. Laba waxa weeyaan waa qof caan ah oo adduunka caan ka ah oo magac leh maadaama iyada laftirkeeda la afduubay oo dhibaato badan ay soo martay. Saddex waxa weeye hawsheedaba waxay tahayba iyadiyo islaama iyo iyadiyo oo maxay bini'aadanka sida la isugu soo dhaweeyo iyo sida loo ixtiraamo ay ku takhasusto baratay. taas ayadoo laga duulayo yaa waxa la yiri marka ka shaqee adigu project-kan oo Talyaaniga iyo EU-ga iyo isla fangareynaya adiguna dadka kala shaqee sidii maaragtay bini'aadanka la isugu soo dhaweyn lahaa islaamka nacaybkiisana looga fogaan lahaa. marka islaam nacaybka sidoo ka yahay Talyaaniga hadii aad sharaxaad naga siiso. islaamka Talyaaniga caadiyan laba dhinac markii loo fiiriyo caadiyan marka islaamka ilaa waagi Torre Gemelle oo maaragtay Twin Towerski Mareykanka ay soo rideen 2011 dhibaato ka taagnay sababtay daraad anniversary-gii bay ahayd ilaa sida Al-Qaeda ay dhibaatadaas u geysatay waxa weeye ummadda islaamka iyo magaca islaamka caqabad baa saaray laakiin caqabada waaweyn oo siyaasadda loo jeedo oo Ameerikaanka iyo waxaas ay dabada ka buufinayeen waxa ka daran caqabad hoose oo nacayb dad oo aan saa u badnayn laakiin aan yarayn ay cuqdad u hayaan ummadda muslimka reer Yurubka iyo Westernka aad uga dhacay Faransiiska ka dhacay Ingiriiska ka dhacay Holland ka dhacay Jarmalka ka dhacay Talyaanigu ilaahay wadamada uu ka badbaadiyay buu ku jira oldo foreign fighters badan oo Syria iyo ka dagaalamo Talyaani xataa cadowgu uu jiro marka caqabadahaas oo dhan yaa waxay keeneen in muslimkii laga cabsado. Hadii aan dhageystayaasha dib u xusuusino bal maxaan ka naqaanaa horta gabadhan abayo gabadhan ay too Silvia Romano sida loo og yahay baa Soomaaliya lagu afduubay oo lagu hayn jiray waxa weeye halkan Talyaaniga markay timid waati isbedelka isku samaysay diinteeda oo muslimnimada qaadatay muslimnimada qaadashadeedii caqabado badan baa kala soo kulmay iyo dacaayad oo socialka loo soo geliyo iyo maaragtay hanjabaad iyo waxyaabo noocaas haddeer xataa Augustan markay fasax aaday oo reerkooda ay fasax u raacday meelaha fasax u aaday maadaama gabadhii ay xijaaban tahay waxa weeyaan waa lagu fooriyaa waa lagu buuqaa waa dad baa aan badnayn baa laakiin target garaystay